السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولمو ميديا halkan uga barateen inuu idin kasoo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kuwada ugu xiisaha weyn waa maalinimo khamiis ah 18 bishii 6 sanada 2020 waxaan hadaba warkeena ku bilaabaynaa iyadoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirtay dadaalo farabadan sidii ay dalka dib ugu soo celin lahayd muwaadiniinteeda Soomaalida ee ku kala xaniban dunida tan iyo markii uu dhacay cudurkan COVID-19 amaba coronavirus ee uu dunida kala xiray ayaa muwaadiniin Soomaali ah waxa ay ku kala xanibneen daafaha dunida hadaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa juhdi badan waxa ay gelisay sidii muwaadiniinteeda dalka ugu soo celin lahayd waxa maanta gudida dowladaha ee aadan cad ku yaala magaalada Muqdisho ka degay 130 qof kuwaasoo ka duulay dalka Uganda dadaalkaas lagu soo celinayay muwaadiniintan ayaa waxa gelistay dowladda federaalka Soomaaliya juhdi farabadan iyadoo sida in ognahay bishan gudaheeda laga soo celiyay dadyo kala duwan dalka Hindiya iyo Sacuudiga dowladda federaalka ayaa waxa ay marar badan ku dadaashay amaba ay juhdi farabadan iyo adeeg gelisay sida muwaadiniinteeda dalka ugu soo celin iyadoo ku guuleysatay inay soo celiso dadyo farabadan oo Soomaali ah oo ku kala xanibnaa daafaha dunida waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal qarax ayaa waxa uu ka dhacay degmada Hodan ee ku taala magaalada Muqdisho qaraxan oo warbaahintu sheegtay si inuu yahay nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa ay warbaahintu sheegaysaa in halkaasi loo geliyay ama la rabay in la beegsado baabuur nooca ciidanka ah oo meesha marayay waxaasi qaraxii la beegsaday oo uu ku dhacay mooto bajaaj taas oo ay saarneed ayaa la yiri hooyo iyo ilmo yar ay wadatay 3 qof ayaa ku dhintay oo ay kamid tahay hooyada iyo ilmihii yaraa iyo 3 qof oo kale oo dhaawaca oo loola cararay goobaha caafimaadka amaba xarumaha caafimaadka ee ugu dhow halkaasi qaraxan ayaa waxa la sheegayaa inuu duhurnimadii xilli ahayd uu dhacay iyadoo la soo sheegay in 3 qof ay dhintay uu ku jiro moota bajaajlihii dareewalka ahaa waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal shirki uga socday ama wada hadaladii uga socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa soo gabagaboobay shirkaas Djibouti ka socday dowladda federaalka iyo Soomaaliya ayaa ku heshiiyay 5 qodob kuwaasi oo loo saaray 3 guddi hoosaad oo ka shaqeyn doona qodobadaasi hadaba qodobadaas lagu heshiiyay ayaa saxaafadda waxa uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Djibouti Mudane Maxamed Cali Yuusuf qodobadaas oo kala ah qodobka koowaad sidii loo sii wadi lahaa wada hadallada iyo shirarka mustaqbalka si habsami leh oo qurxoon qodobka labaad sidii dib loogu dhisi lahaa kalsoonidii labada dhinac qodobka saddexaad sidii loo meel marin lahaa qodobadii lagu heshiiyay shirarkii hore ee aan la hirgelin sida kaalmooyinka dhaqaale ee caalamiga ah iyo gargaarka bini'aadanimada waxaa qodobadaasi loo saaray guddi kuwaasoo ka shiri doona 3 Juulaay sanada 2020 kuna shiri doona dalkaasi Djibouti waxaa labada dhinac ay soo saareen guddi ka wada xaajoon doona arrimaha hawada kuwaasoo 2 asbuuc gudahood ku shiri doona isla dalkaasi Djibouti qodobka shanaad labada dhinac ayaa wixii ku heshiin inay xoojiyaan iyagoo u saaray guddi saddexaad arrimaha amniga iyo nabadgelyada waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee dalkaasi Djibouti kulan gaaban kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyaga oo ka wada hadlay ayay warbaahintu sheegtay arrimo aad ugu muhiima labada dal hadaba daawada hadee tahay channelka markii kuugu horeysay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socotid fiidiyoyada naaxiga adigoo mahadsan waxaan kaloo idin haynaa wararkeena dibadda daawadayaal dalka Turkiga ayaa waxaa la soo sheegayaa tan iyo xilligii uu bilaabay inuu dagaal la galo kooxaha ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya Ciraaq iyo dalka Liibiya ayaa waxaa la soo sheegayaa Turkiga in uu burburiyay amaba uu duqeymo halis ah u geystay 500 oo goobood oo ku kala yaala 3daas dal waxaa la soo sheegayaa in dalka Syria iyo Ciraaq iyo Liibiya uu Turkigu burburiyay xarumo halkaasi amaba fariisimaad u ahaa kooxaha mucaaradka ee ka dagaalamayay dalalkaasi
suuriya waxa uu turkiga u galay iyo ciraaq isaga oo difaacaya xadkiisa si ayan uga soo gudbin qolyaha xagjiriinta ah. suuriya waxa uu la galay dagaal aada u dheer kooxo argagixiso ah oo doonayay inay dalka turkiga u tallaabaan, isaga oo horjoogsaday dhammaanna burburiyey awoodoodii dalka ciraaq. sidoo kale kooxaha loo yaqaano PKK ayaa rabay inay gudaha turkiga uga gudbaan, walow uu u suurtoobi waday isaga oo u adeegsaday awood dheeriya sida ay warbaahintu sheegayso. sidoo kale dalka Liibiya, turkiga isaga oo gacan siinaya dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya ee GNA ayaa waxaa lasoo sheegayaa in uu halkaasi ka fuliyey howlihii ugu farabadnaa tan iyo intii uu dagaalka kula jiray saddex geesoodka ah ee ka socday suuriya, ciraaq iyo liibiya, isaga oo lasoo sheegaya dhammaanba khasaaraha ugu weyn ee uu u geystay ruushka, gantaalihii uu halkaasi dhigay, iyo imaaraadka iyo masar oo halkaasi geeyay ciidamo caloosho shaqaystayaala, kuwaas oo la sheegayo inuu turkiga cagta mariyey isagoo adeegsanayay awoodiisa diyaaradaha droniska ah iyo isagoo adeegsanayay ciidamo infantry. turkiga ayaa waxaa la sheegayaa sidoo kale inuu ciidamo khuburo ah uu geeyey gudaha dalka Liibiya, kuwaasoo tababarayay ciidamada Liibiya, gacan buuxdana ka siinayay sidii ay u baabi'in lahaayeen amaba ay usoo afjiri lahaayeen jananka gooni ugoosadka ee generaal Khalifa Haftar, kaasoo muddo dagaal kula jiray dowladda la aqoonsan yahay, isaga oo inta badan awal gacanta ku hayay gudaha Liibiya. ayaa hadda waxaa la sheegayaa in gebi ahaanba uu jananka ka baxay gudaha dalka Liibiya, dhammaanna la burburiyey xoogagiisa. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal murankii xuduudda ay u dhexeeyay labada dal Hindiya iyo Jaynaha in laga gaaray is-afgarad ku saleysan guulo waaweyn, kuwaasoo la sheegaya in la asteyn doono bilaha soo socda xadka ay ku muransan yihiin labadaasi dal. waa Bolmog Media.